asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idiin salaamay dhammaantiin meel waliba joogtaan kusoo dhowaada muuqaalka maanta oo aan idiin soo gudbinaya anigoo Cabdulle Macalin Maalto. Moogtahay daawade in maskaxda bini'aadamka ay ka kooban tahay 78% biyo. moogtahay in dalka Switzerland uu yahay dalka loogu cunid badan yahay shakaleedka mase ogtahay in qofkiiba uu cuno sanadkiiba 10 kiilo. moogtahay daawade in dhawaqa ilmaha ugu horbarto kana dhex garto codadka kale uu yahay codka hooyadii kaasoo uu barto si fiicanna u maqlo inta uu uurka hooyadii ku jiro ee aanu soo dhalan sida ay xaqiijiyeen cilmi baarayaasha. moogtahay daawade in timirtu marka ay si fiican u bislaato dawo ka noqoto calool istaagga mise ogtahay marka aanay bislaanna inay daweyso casiraadda iyo cudurro badan. balse intaanan u gudagelin barnaamijkeenna like saar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan, sheer leh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adigoo kale. hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keenna, sidoo kalena subscribe dheh YouTube channelkeenna, gambaleelkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub ee aan soo gelinno. mahadsanid. moogtahay in dalka Australia markii hore loo aqoonsan jiray The New Holland. moogtahay in wadada ugu dheer ee dunida ay tahay Yonge Street ee ku taalla magaalada Toronto ee dalka Canada, dhererkeeduna yahay 1896 kilomitir. moogtahay in shirkadda Nokia loogu magac daray meel ku taalla koonfurta dalka Finland. moogtahay in Bill Gates uu bilaabay inuu borgaraamiyo kombiyuutarada markii uu jiray 13 sano. moogtahay in cirbixiyeenadu aysan ooyi karin ama ay ilmayn karin marka ay hawada sare joogaan sababtoo ah ma lahan gravity, sidaa darteed ilinta kuma dareeri karto dhabanadooda. moogtahay daawade in eygu uu maqlo cod aysan bini'aadamku maqli karin. moogtahay daawade in xawayaanka raha aanu waxba liqi karin isagoo indhihiisa ay furan yihiin. moogtahay daawade in geela marka uu dhalanayo uusan lahayn wax kurus ah. moogtahay daawade in 64 cisho uu maroodiga uurka hooyadiis ku jiro. moogtahay daawade in masaafada codka libaaxa laga maqli karaa ay tahay 8 kilomitir. moogtahay daawade in bisadu ay samayn karto 100 cod oo kala duwan halka aygu 10 cod oo qura u ciyi karo. moogtahay daawade in gaari gacankii ugu horreeyay caalamka lagu sameeyey waddanka China. moogtahay in kaneecada mideeda dhadiga ah oo qura ay wax qaniito. moogtahay daawade in waddanka Sacuudi Carabiya uusan lahayn wax webi ah. moogtahay daawade in taybkii ugu horreeyay la sameeyey sanadu markay ay ahayd 1829. waxaa intaa inoogu eg warbixinteennii oo aan idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdulle Macalin Maalto.
haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar sabskraibna dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheergaranaya muuqaalkan mahadsanid